channelkeena Ixsaan. Maanta waxaan ka hadlaynaa waxbarashada iyo bisha Ramadaan. Waxaan la soconaa in waxbarashadii iskuuladii iyo jaamacadihiiba la xidhay. Waxbarashadiina ayna socoto iyadoo uu jiro corona. Ayna soo dhow yihiin waqtiyadii imtixaanaadku. Qof kastaana uu warwarkiisa haysto. Sidaa awgeed maanta waxaan ku soo gudbin doonaa 10 qodob. Waan isleeyahay way ku anfici doonaa haddaad dabaqtid. 1. Waqtiga ugu habboon ee aad wax akhrin kartid. Waxaa laga yaabaa waa bishii Ramadaan qof kasta uu daalan yahay. Marka waxaan ku soo gudbinayaa 2 waqti ee ugu habboon inaad wax akhrisid. Mid waa waqtiga suxuurta kadib ilaa iyo salaada duhur. Waayo waa waqti aad siisay jirka energy ku filan oo aan ku shaqayn karo. Xaafadaad wax ku akhrinaysaana waa la wada hurdaa. Waxaanu ka saacidayaa waqtigaas inaadan mashquulin. Waqtiga kale waxa weeyaan marka laga baxo salaada cishaay ama taraawiixda ilaa laga gaarayo suxuurta. Waqtigana waa waqti dadkoo dhan ay soo wada jeedaan. Musalsaladii ama filmadiina la daawanayo. Xaafadu waa waqti marka ay kulantay. Marka adu kalba 2 waqti ka ku fiican kala dooro. Qodobka labaad, qorshe. Waayo qorshe wuxuu ka dhigayaa inaad awoodda saarto waxaad qorshaysay. Bal waxaad ka soo qaadaa adiga oo aan waxba qorshayn. Soo kacayna weliba sooman tahay. Ay weliba kaa sugayaan qoyskiina inaad caawisid. Laylisadii aanay ku sugayaan imtixaanadii. Waxaad soo kacaysaa adigoo dhinac khaldan u fikirayaba. Si aad u soo kacdid adigoo firfircoon, waxaad isku daydaa inaad qorshaysid qorshe weekly ah ama qorshe maalinle ah ku bilow. Qodobka saddexaad, isku day inaad sidan wax u akhrisid. 25 mirir kastaba 5 daqiiqo oo nasasho qaado. Haddaad mar kaliya hal saac wax xidhiidha wax akhrisid, waxay kugu sababaysaa inaad waxbarashadii nacdid ama waxbarashadiiba ka tagtid. Isku day markaa inaad qorshaha hore 25 mirir kastaba inaad 5 mirir oo nasasho qaadatid. Qodobka afaraad, isku day markasta waxaad akhrinayso inaad warqad kaliya ama buug kaliya waxba ka akhrin. Ay isticmaal dhageysi ama daawasho. Kolba mid u gudub. Waxay ka saacidaysaa ama ka caawinaysaa inaad hore u caadisin. Waayo YouTube-ka waxa ku jira waxyaabo badan aad daawan kartid. Internet-ka aan isticmaalno aynu ka faa'iideysano. Qodobka shanaad, waxaad isku daydaa inaad ka fogeyso markaad wax akhrisin telefoonkaaga. Waayo waxa uu kaa cunayaa waqti fara badan. Haddaad wax akhrin lahayd laga yaabaa inaad horeba u dhammayn lahayd. Sidaas iskaga fogeysid telefoonkaaga. Isku day inaad telefoonkaaga dhigtid qolkaad wax ku akhrinaysid maaha qolka kale. Qodobka 6, sidaanaad uga caadisin waxbarashada. Waxaad isku daydaa ardayda isku galaaska ahaydeen inaad samaysataan group aad isku weydiisaan ama aad ku wada sheekaystaan oo kaliya waxbarashada. aad weydiisaan ku tiraahdo hebel wax inta ma akhrisay maanta, hebel waxbarashadii ma akhrisay, hebel maadadii ma akhrisay, hebel su'aasha iga soo jawaab. kaliya groupkaas waxa lagu wada sheekaysto wax ku saabsan waxbarashada. waxbarashada dhaafsana waa ka mamnuuc groupka. Qodobka 7, qodob aan doonayay inaan ku bilaabo oo ah markaad waxbarashada bilaabaysid isku day hal bog oo Qur'aan ah inaad ku bilowdid. Waayo waxa uu ka saacidayaa inaad ku firfircoonatid iyo inaad ku deganaatidba. Qodobka 8, samee waxaad jeceshahay ka tagna musalsalada aan faa'iido ku lahayn. Waqtigana hurdaha ku dilin. Samee wax faa'iido ku leh ama waxaad jeceshahay sida jimicsi, in sida wax loo sawiro baratid, in sida cuntada loo kaliya baratid, iyo in luqad kale baratid. Kolba aduu saad jeceshahay. Qodobka 9, ha u arkin waxbarashada waqtiga Ramadaanta wax khaldan. Waayo waxa laga yaabaa inay taas kugu sababto inaad ka tagtid inaad wax akhrisid. Qodobka 10, samee wax ku khaasa si aanad u caajisin waqtiyada waxbarashada ee Ramadaanta. Aad baad mahadsantihiin daawatid. Fadlan waxaan ka codsanaynaa inaad subscribe